السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسو دوادا موضوعنا مانتا هديات كعصبتا كنالك فضلا سبسكرايب نوصر سيدو كلان لايك موضوعنا سي شير غري ركمنا جنباليل كسيب برنامجكم مركا ان سو قلنا مركي بادو السعودي waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa qisa ku saabsan sigaarka nin ayaa galay qolka khaaska ah ee sigaarka loogu talagalay oo lagu cabo garoomka kamid ah garoomada diyaaradaha markaas uu ka soo baxay ayaa waxa gacanta qabtay oo meesha taagnaa nin ayaa taagnaa si kadis ayuuna su'aal weydiiyay wuxuuna ku yiri maalinkii intee xabo oo sigaar ah ayaad cabtaa aad ayuu u yaabay markaas ayuu ku jawaabay maxaad su'aashaas ii weydiinaysaa aniga meel cajiiba ayuu ka fikiray wuxuuna yiri ninka hadaad urursan lahayd lacagtaas aad sigaarka ku cabto diyaaradaas halkaas duulaysa aad ayuu u dhowla cadeeyay su'aal la mid ah ayuu ku soo celiyay wuxuuna yiri adigu sigaar ma cabtaa ninkii ayaa yiri si degdeg ah maya wuxuu ku yiri haye diyaaradaas oo kale ma leedahay maya ayuu hadalna ku yiri ninkii ayaa yaabay wuxuuna yiri waad ku mahadsantahay waanadaada anigu sigaarkana waan cabaa diyaaradaasna anaa iska leh ninkii ayaa aad u yaabay isla markiiba waxa goobta soo gaaray ilaalada ilaalinaysay ninka sigaarka cabay waxay ku yiraahdeen boss ma ku caawina maya ayuu yiri qisadani ku dhacday waa milyaneerka Ingiriiska ah ee la oran jiray Richard Branson iyo ujeedka mawduucan aan u soo qaatay dhiirigelin xagga sigaarka igama aha balse mararka qaar intaadan qofka la doodin waxa fiican inaad xaalkiisa ogaato oo aadan ku degdegin shakhsiyadiisa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan hadaad ka heshay like saar waadna mahadsantahay fi amaanillah halkani waa hoyga bulshada oo sumadu ah soo deynta macluumaadiyada taariikhda leh dhacdooyin hadaad ku cusub tahay kanaalkan fadlan subscribe noo saar like-na ku harqi daawada si ay dhiirigelin noogu noqoto like taado waa mahadsantiin asxaab